السلام عليكم كل توعان ولا سمي كسر عالم كجوجتان سو دوادا دراسad lagu daabacay isla maalinimada shalay majalada arrimaha caafimaadka faalootay magaceeda la soo gaabiyo European Society for Cardiology ayaa lagu sheegay cabitaanka kafeega gaar ahaan suuq hore ay tahay mid wanaagsan wadnaha daraasaddan ay sameysay jaamacadda magaceeda loo yaqaan Tulane ee ku taala gobolka New York Mareykanka wuxuu ka caayay Dr. Liuki daraasaddu wuxuu ku sheegay isticmaalka xad dhaafka ee kafeega aan ahayn mid markaa faa'iido leh balse isticmaalka kafeega gaar ahaan suuq hore uu yahay kan ugu wanaagsan tan hoos u dhigi karta xanuunada ku dhici kara wadnaha iyo sidoo kale dhimasho xilli hore tan waxay ka dhigan tahay in hoos u dhigi karto dhimashada xilli hore 25% balse daraasadda kale ayaguna sidoo kale sheegay isticmaalka kafeega ay wanaagsan tahay feerka baaristan ay ka qayb galeen in ka badan 40,000 qof waxaa lagu sheegay isticmaalka xilli dambe kafeego ay khalkhaliso hurdada taasoo waxay ka dhigan tahay in carqaladiso hormoonada qofka u qaabilsan hurdada iyo sidoo kale waxa loo yaqaan saacada jirka gaar ahaan maskaxda si kastaba ahaatee Professor Liuki waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay daraasado dheeraad ah si loo xaqiijiyo faa'iidada marka noqoto kafeega uu leeyahay caafimaadka wadnaha iyo sidoo kale guud ahaan caafimaadka tan kula dambe nabadgelyo.